muuqaalkani wuxuu gaar u yahay qof kasta oo ku jira suuqa forex trade iyo dahabka. marka haddii aad ka ganacsato isku sarifka lacagaha qalaad ama dahabka ama aad tahay muwaadin ku nool Mareykan ila dhamayso muuqaalka. maanta ay taariikhdu tahay 17 Maarso 2026 waxaa shir ku jira guddiga magacooda loo soo gaabiyo FOMC Federal Open Market Committee waa guddiga go'aamiya jihada dhaqaalaha Mareykanku aado. Mareykanka sokow go'aanadoodani waxay saameyn toos ah ku leeyihiin suuqyada caalamka gaar ahaan lacagaha iyo dahabka maadaama doolarku yahay horyaalka lacagaha adduunka. doolarka iyo dahabkuna ay isku xiran yihiin had iyo goor. waa guddi ka kooban 12 xubnood oo ka tirsan bangiga dhexe ee Mareykanka Federal Reserve. shaqadooda ugu badanna waa go'aaminta ribada ama waxa loo yaqaan interest rates iyo xakamaynta sicir bararka. sidoo kale waxay hubiyaan guddigani in dadka Mareykanka ah ay shaqo helaan, dhaqaaluhuna uusan dumin oo uu noqdo mid xasiloon had iyo goor. shirka ay hadda ku jiraan caadiyan wuxuu dhacaa 8 jeer sanadkii isagoo socda 2 maalmood oo toos ah. maanta oo Talaado 17 Maarso waa maalinkiisii koobaad wuxuuna soo xidhmi doonaa berri oo Arbaco ah bishuna ku beegan tahay 18 Maarso. wuxuuna shirkani ku soo aadayaa xilli xaaladda dhaqaale ee caalamku ay kacsan tahay sababo la xiriira xiisadda colaadeed ee ka taagan bariga dhexe. haddii marka aad isweydiinayso daawadow qaabka uu saameyn doono dadka ku jira suuqa forex iyo ka ganacsiga dahabka waa sidan xaalku. waqtiga Mareykanka saacadu markay tahay 2 galabnimo oo ku beegan 6 maqribnimo ee bariga Afrika waxay guddiga shirka ku jira soo saari doonaan warbixin qoraal ah oo lagu jaangooyn doono dulsaarka, taas oo ah mid aad loo wada sugayo. haddii ay kolka walaac ka muujiyaan sicir bararka, doolarka ayaa kor u kici doona. sidoo kale haddii ay ribada kor u qaadaan, dahabka ayaa caadiyan hoos u dhaca. 30 daqiiqo kadib saacadu markay tahay 2:30 daqiiqo dhanka Mareykanka ayna ku beegan tahay 6:30 daqiiqo ee fiidnimo ee bariga Afrika waxaa shir jaraa'id qaban doona gudoomiyaha bangiga dhexe ee Mareykanka. kalimaad kasta oo uu shirka jaraa'id ka yiraahdo gudoomiyuhu waxay suuqa u dhaqaajin kartaa boqolaal pips. ama si kale haddii aan kuugu sheego, suuqu wuxuu u dhaqaaqi doonaa si xawli ah. waxaana muhiim ah inaad la socoto saacadaha kan iyo warbixinta la wada sugayo.